بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحرجينا يا إن دعوتك مقليسان. ما شاء الله. هبين وناكسن meel kasta aad joogtaan saacaddu waqtigan aan joogo waxay tilmaamaysaa 12:10 mahadsantiin dhammaan dadka ka soo qayb galay barnaamijkan tooska la wadaagayo aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa meel kasta aad joogtaan. waxaan runtii ku horeysiinayaa walaalkeen cabdiraxmaan cabdalle xaaji dabcasar oo ku xidhan magaalada hargeysa. insha allah waxaan doonayaa inaan si kooban marka ugu horeysa arbacadii uu yimi ilaa axaddii oo la xidhay ninka yar runtii muxuu ahaay toddobaad ayuu muxuu ahaa joogay magaalada hargeysa inaan muxuu ahaay faahfaahin ka bixiyo bilow ilaa dhammaad iyo sida ay wax u dhaceen iyo sida ay wax u socdeen ayaan doonayaa insha allah inaan idinla wadaago. cabdiraxmaan wuxuu yimi maalin arbacaa magaalada hargeysa uu ku soo beegmay maalintii la caleema saarayay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi. taariikhdu waxay ahayd 13 bisha 12 2017. waxaanu ka soo degay gegida diyaaradaha cigaal si rasmi ah ayuu usoo galay, sifa sharci ah ayuu kusoo galay somalilan. barnaamij toosa ayuu ka galay gudaha gegida diyaaradaha ee cigaal ee hargeysa. waxa uu la kulmay maamulka iyo mas-uuliyiin halkaa ku sugnaa oo ka mid a howlwadeenada gegida diyaaradaha. runtii si weyn baa loo soo dhaweynayay. gudaha magaalada ayaa muxuu uu soo galay. wuxuu la kulmay oo u yimi ujeedkiisu laba ka mid a caruurtiisa yaxye iyo maryan oo aanu muddo dheer arag ayuu yimi cabdiraxmaan. isla maalintiiba uu la kulmay caruurtiisa, wayna saarkeen, wayna wada hadleen, arrimo badanna way isweydaarsadeen. cabdiraxmaan aniguna ka soo galay magaalada burco isla habeenka arbacadu ay soo galayso. maalin aan filayo inay ahayd salaasa ayaan soo galay magaalada hargeysa. waxaan ku war helay laftaydu dabcasar oo kasoo kicitimaya Ukraine oo barnaamij toosa soo galay oo leh hargeysan kusoo socdaa. tigidhadii muuqaalo ka qaaday oo kuwa shandadahaygii hargeysa iga horeeyaan. marka runtii halkaasaan ku war helay aniguna. cabdiraxmaan waxaanu ku kulannay oo aan ku ogaaday anoo aan telefoon ka ahayn barnaamij toos oo ay dhalinyaro ka duubaysay hodheel uu ka qadeynayay baan muxuu runtii raacay barnaamijka tooska ma raacay. waxaanan kula kulmay hodheelkii cuntada hortiisa muuqaal aan muxuu ahaayay nala ka duubayna waxa weeye facebookeygan soo dhigay. cabdiraxmaan runtii waanu israacnay, waanu iswareysanay, barnaamij baan ka qaaday, siyaabo kala duwan baan isu wareysanay. waxyaaba badan baan muxuu ahaa isnidhi. cabdiraxmaan wuxuu ii sheegay markaa inuu yimi booqashada ubadkiisa, uu doonayay in muxuu ahaay yar nafiso yar dego maalmo muxuu ahaay dhulkiisa muxuu ahaay ku qaato, inuu muxuu ahaay fasax haysto ilaa bisha 20 ayuu fursad haystaa. marka wuxuu doonayay inuu muxuu ahaay naftiisa muxuu ahaay u keli noqdo oo yani muxuu ahaay quraanka yani muxuu ahaay dib u akhriyo inankiisa yaxye
oo way barayaan arkay inuu muxuu ahaay qur-aanka la mudaaraseeyo. cabdiraxmaan ujeedkiisa muxuu ahaay saasuu igu sharaxay. waana markii ugu horreysay aanu kulanno cabdiraxmaan. waxyaaba badan baanu iska wareysanay cabdiraxmaan dabcasar kulanka yagii. waxyaaba badan baan muxuu ahaay isnidhi. xaqiiqatan waxaan tusay waxyaabaha badan uu ku wanaagsan yahay, waan ku dhiirigeliyay wax wanaagsan. waxaan u sheegay inuu codkar yahay, saameyn leeyahay, inuu waxa u adeegsado inta wanaagsan baan runtii ay taladeedu ahayd. ayaan kula talinayay inuu muxuu ahaayay awoodaha ilaahay siiyey inuu u adeegsado yani xagga wanaagsan. waan u sheegay runtii inuu muxuu ahaayay arrimaha qaar ka baxo, sida muxuu ahaayay inuu xuso waxyaabaha runtii dhaqanka soomaalida yani aan laga aqoon, inuu afkiisa soo mariyo inuu iska ilaaliyo, beelaha caydooda inuu iska ilaaliyo. arrimahaasaan runtii cabdiraxmaan kula dardaarmay, si gaar ah ayaan kula dardaarmay, oo aan barnaamij baanan duubino laakiin dhexdayada ah. xaqiiqatan waxa uu isaguna muxuu ahaayay arrinkaas uu nala qaatay, horena way ka goonayd. raaligelin buu muxuu ahaayay mar kasta bixinayay, goob kasta khaladaadkii ka dhacay wuxuu sheegayay mar kastaba inuu muxuu ahaayay jidkii toosnaa mari doono, hagaagi doono. maasha allah, waxa weeye wax lagu farxay ahayd, waanay ka goonayd runtii sida ka muuqata. inta uu joogay Hargeysa iyaro kooban baan wada joognay. wuxuu mar kasta ka gudbinayay magaalada Hargeysa, gaar ahaan guud ahaan Somaliland, sawir wanaagsan, muuqaal wanaagsan, nabadiina ka jirto, in la soo dhaweeyay, inuu filayay in la xidho laakiin aanay dhicin. sawir kalaan ka qabay buu yidhi, laakiin wuxuu sheegay sawirkan ka qabay sawir kale ayaa la kulmay. saasuu sheegi jiray mar kastaba wanaag badan. meheradaha yani wuxuu isku dayi jiray in muxuu ahaayay inuu intu hadduu ka cunteynayo ama hadduu joogo ama hadduu hurdo meesha inuu u xayeysiiyo oo la arko muxuu ahaay waxa ay hayaan. xaqiiqatan cabdiraxmaan saasuu ahaa. cabdiraxmaan waxay ii qorshaysneed aniga cabdimaalik ahaan, maadaama caleemasaarku ahaa arbacada, inaan caleemasaarka kadib u ambabaxo magaalada muqdisho khamiista, inaan ambabaxo oo halkaa kusoo qaybino lacag aan hore u haynay oo gaadhaysa $40,000 oo loogu talagalay dhibaatadii dadkii ku dhibaatoobay qaraxii Soobe inaan u qaybin ayaa jiray. markaan muxuu ahaayay qaybintaa dhameeyana fiise iga dhacaya inaan ku baxo, oo waqtigii runtii wax yar uu ka harsan yahay. marka waqtiga aada igu celiirihaa, fiisaha dhacaya iyo lacagtaasoo ay ahayd inaan qaybiyo, labadaasaan doonaya inaan soo dhameeyo. cabdiraxmaan markaa waxaan go-aansaday inaan la sii joogo, oo aanan khamiista bixin, oo aanan jimcaha bixin, oo aanan sabtida bixin, oo yani muxuu ahaay aan axadda waqti la soo qaatay maalintii axadda, anoo doonaya inaan cabdiraxmaan muxuu ahaay gacan qabto, inuu magaalada si fiican ula qabsado, inaan muxuu ahaay xagga wanaagsan ku hago, inaan dhabbada muxuu ahaay saxdaa tuso. cabdiraxmaan runtii markuu madaarka soo galay, dadkii madaarka waxay ii sheegeen inuu qofkii ugu horreeyey uu weydiiyey, magaalada ka weydiiyey iyo Somalilandba ka weydiiyey cabdimaalik. runtii muxuu ahaay cabdiraxmaanna hawadaanu iska baranay, wanaag baan muxuu ahaay runtii isku baranay. wixii dardaarana runtii muxuu ahaay telefoonkan cabdiraxmaan uga sheegi jiray, si toosoo badanaaba uguma sheegi jirin cabdiraxmaan. xaqiiqatan markaa arrinkaas ay celiyay inaan cabdiraxmaan bal la sii joogo maalmo, yani inta muxuu ahaayay uu la qabsanayo magaalada, intuu muxuu ahaay jawiga la qabsanayo, intuu muxuu ahaay waxyaaba badan inuu sii sheego. marka waa la sii joogay. marka waxay noqotay inaan baxo markii aan arkay inay xaaladdu yani muxuu ahaay iska degan tahay inteeda badan. xaqiiqatanna warwar kalena runtii iska jiro, oo runtii aan u warwarsanaa, haddana waqtiga muxuu ahaayay dabada iga riixayaan ku xisaabtamayay.
intaanan bixin haddaan dib ugu noqdo maxaa dhacay cabdiraxmaan waxaanu u qaabinay kulan uu dadka wax wanaagsan u sheegayo oo ay dadka taageersan ee jecel muxuu ahay na soo wacaya mar kasta odhanaya cabdiraxmaan baan doonaya inaan aragno inuu mar qura arko waxna u sheego oo ay kala tagaan ka bogtaan marka waxaanu u qaabinay kulan ka qabsoomaya hodheel ka mid a hodheelada magaalada annagoo muxuu ahay saacad ka harsan tahay iyo wax yar ayaa muxuu ahaye oo munaasabadii soo dhowdahayaa qoladii hodheelka nagu wargeliyeen inay ka cudur daaranayaan inuu kulankaasi muxuu ahay qabsoomo waxaan la xidhiidhnay hodheel kale kiibaa muxuu ahaye adigu si kabasha aan muxuu ahaye u tagnay dadkii xagga waxawille halkiiba muxuu ahay cabdiraxmaan uu kula kulmay aan cabdiraxmaan muxuu ahay su-aalo iska badihiya oo muxuu ahay ku saabsan cabdiraxmaan halkii ku weydiinay aragtidiisa muxuu halkii ku sharaxay muxuu ahaye aan isku daynay muxuu ahaye wax wanaaga uu dadka u sheegi kara inuu sheego kana fogaado runtii wixii muxuu ahaye khaldanaa mathalan oo kale dee uu odhan jiray oo kale lakin intiisa wanaagsan baan doonayna cabdiraxmaan in muxuu ahaye uu uga faa'iideeyo noloshiisa iyo ummadda iyo diintiisa ayaan muxuu ahaye insha allah ugu talagalnay alxamdulillah uu noo qabsoomay kulankaasi wuu la kulmay si degan buu la kulmay way kala bogteen dhalinyaradii wuu arkay alxamdulillah habeenkii muxuu ahaye sidii baan ku kala tagnay markii kulankii dhammaaday oo yani ahaa jimcihii waxaa cabdiraxmaan maalintii axadda ayaan muxuu ahay dee go-aansaday muxuu ahay inaan ka soo baxo oo cabdiraxmaan muxuu ahay runtii ka imaado oo aan u sheegay oo ila qaatay aan kuli niyo sababtaasaan doonay u baxo insha allah dee waxaan kula dardaarmay inamadii saaxiibaday ahaa baan kula dardaarmay in muxuu ahay ninkaas ay hayaan oo ay hagaan oo ay tilmaamaan oo ay ninkaa inta ilaalin karaan ilaaliyaan oo ay garabkiisa ahaadaan wuxuu baahan yahay u qabtaan asxaabtaydii baan maxaa kula dardaarmay arday ninkii waa kaasaan ku idhi cabdiraxmaan runtii isagana waxaa weye waxaan kula dardaarmay inaanu xusin badanaaba goobta uu joogo iyo hodheelka uu hurdo iyo yani amnigiisa yani si aan amnigiisu muxuu ahay halis u gelin runtii yani qofku muxuu ahay cadow badan buu iska yeelan karaa oo beegsan kara marka cabdiraxmaan in badan ba muxuu ahay la dardaarmay inaanu muxuu ahay xusin markii maalintii axaddii aan soo baxay axaddii shalay dabcan iminku habeen salaasi soo gelayso maanta muxuu ahay siniin bay ahayd axaddii markaan ka soo baxay oo aan barnaamij toosa la soo galay cabdiraxmaan oo aan la soo dardaarmay oan hodheelka u tegay oo aan live u galay muxuu ahay dardaarankii waxaan maqlay markii aan soo galay diyaaradda waxay nala soo kacday muxuu ahay kowdii iyo dheeraad ilaa kowdii bay nala soo kacday waxaan nimi halkan 2 saacadood iyo 10 daqiiqo soo socotay muqdishaan nimi oo aan joogaa iminka waxaan maqlay un markii aan soo galay aan telefoonadii furannay ayuun baan maqlay cabdiraxmaan ayaa muxuu ahay la jirdilay ciidamada muxuu ahaye booliska ayaa kusoo weeraray goob uu ka cunteynayay hoteelka carafa ee ku yaala aagga ama xaafadaha calaamadaha ku yaala jidka madaarka ayuu ku yaala aagga musalla warkaasaan maqlay in lasoo weeraray cabdiraxmaan oo muxuu ahay la isku dayay in la qabto oo halkaas markii la go-aansaday in muxuu ahay la qaado uu yimi gudoomiye ku-xigeenka magaalada ku-xigeenka iyo gudoomiye ku-xigeenka duqa hargeysa ayaa yimi oo askartii doonaysa inay qaado waanu ka fasaxay runtii waxaanu sheegay baa la yidhi inay ninkan daayaan ninkan inaanu wax dhiba wadin aan ahayn nin muxuu ahay nin ku nafisa facebooka uu yahay kaliya sidiibaa ay askartii faraha ka qaaday aada u mahadsan yahay runtii caga weyne maayir ku-xigeenka hargeysa sida muxuu ahay waayeeltinimada leh odaynimada leh oo muxuu ahay arrinkaa u maareeyay aad baan uga mahad celinaynaa sidii baa muxuu ahay cabdiraxmaan oo runtii goobjoogayaal halkaa joogay noo sheegeen in la jugeeyey
markaa laftiisa la jugeeyey. waxaan markaa ay inamadii sameeyeen cabdiraxmaan oo runtii muxuu ahay qorshaysnaydba inuu muxuu ahay hoteelkan uu joogo inuu ka wareego asal ahaanba ayay muxuu ahay duhurkii ay ka wareejiyeen hotel kale ayay muxuu ahay dejiyeen. cabdiraxmaan waa kii muxuu ahay barnaamijka tooskaa soo galay, waa kii inoo sheegay yani inuu dhaawacan yahay, inuu jugaysan yahay, dhaawac aan dhiig lahayn laakiin jug yani muxuu ahay qoorta iyo xubno kaloo jirkiisa ka mid a soo gaadhay. laba barnaamijka toos uu habeenkaa galay uu ka hadlayo cabdiraxmaan. subaxii dambena waxa weeye cabdiraxmaan waxaa dhacday isagoo barnaamij toosa ku jira oo madaxuna duuban yahay oo yani muxuu ahaye sheegaya in muxuu ahaye ciidamo ay hareereeyeen oo ay doonayeen muxuu inay usoo galaan oo ay doonayeen inay qaataan oo muxuu ahaye runtii leh waxba maan samayn, maan galabsan, ma mudni xadhigga ayaynu muxuu ahaye arkaynay oo albaabkii qab la soo jebiyey. wixii ka dambeeyey maynu daawan. goobjoogayaal ku sugnaa halkaas oo goobtaa joogay waxay sheegeen in cabdiraxmaan si adag loo garaacay oo loo jirdilay oo askartu ka soo gaadhaaba nabareynayay, nabar gaadhsiinay. sidaasay ku warramayaan, saasay oo soo sheegeen. waxaa halkaa joogay ciidan badan runtii siday noogu warramayaan, ciidan tiro badan ayaa joogay oo soo weeraray cabdiraxmaan. ciidanka waxaa naloo sheegay runtii magacyo iminka halkan ka xusi mayno, saraakiil sarsare oo ka mid a ciidanka ayaa goobjoogayaalaha. saraakiil sarsare oo ka mid a ciidanka ayaa goobtaa joogay oo ku sugnaa oo yani muxuu ahay howlgalka fulinay. wayna arkayeen yani cabdiraxmaan oo dhaawacan oo lasii garaacayo ina waxa weeye way arkayeen, way daawanayeen calaa mar-a wa masmac buu ahaa. cabdiraxmaan sidii baa looga qaaday hoteelkii uu hurday. waxaanu ku war helay inay iyagu dhinacooda ka xaqiijiyeen ka hor intaan iyagu xaqiijina muxuu ahaayey anigoo ah cabdimalik sheekh muuse coldoon shir jaraa'id baan qabtay oo aan kaga hadlayo yani sida ay wax u dhaceen, in cabdiraxmaan la jirdilay, 2 jeer la jirdilay, 2 hudheel lagu jirdilay, maqaaxi ama hudheel uu ka cunteynayay oo yani maalintii axadda la jirdilay iyo isniintii subaxii isniinta la jirdilay taariikh 17 iyo 18 labaduba ay muxuu ahaye boolisku ay jirdileen, loo taxaabay muxuu ahaye ay ciidamada yani muxuu ahaye boolisku ay qaadeen. arrinkaasaan ka hadlay waanan cambaareeyey xaqiiqatan, waanan cambaareynayaa oo si kulul baan u cambaareynayaa xaqiiqatan. xadhigiisa iyo jirdilkiisaba si adag ayaan u cambaareynayaa. may ahayn in cabdiraxmaan wax loo geysto, may ahayn cabdiraxmaan in la jirdilo. cabdiraxmaan cabdalle xaaji dabcasar waxaa ku fillayd in loo yeedho. waa la ogaa inaan muxuuha ka agdhowahay anugu anu ah cabdimalik muuse coldoon. waa la awoodi karaya in layla soo xidhiidho, waa la awoodi karaya in laygu wargeliyo. 5 maalmood ee ugu dambeeyey anaa la joogay, arbacadii baan la joogay, khamiistii baan la joogay, jimcihii baan la joogay, sabtidii baan la joogay, axaddii baan la joogay. 5 maalmood baan maxaa cabdiraxmaan wada joognay. in layla soo xidhiidho oo la yidhaahdo war cabdiraxmaan khaladkaas uu sameynayaaye war saa wax ugu sheeg. haddii la doonayo in la hago, haddii la doonayo in la toosiyo, haddii la doonayo in la dareensiiyo inay shuruuc ay ka jiraan dalka, waxyaabaha uu ku khaldanyahayna loo sheego.
ولا أود كريه يسجل لفتيس إن لا هذا هو ولا قدوني ولا غير يسلقة هل كان الغير قيبت بارس الدنبية نوكال عبد الرحمن رنتي أرمهاس أردن أو بلا هردعة أياد عي أو أن وحبل له شيء أو أن لو ورجلين أو أن الكوسة ورجلين وحيابها إياه كلا دعي هبين كي لدوني إن لقبته يسوي بريسبح لقبانيس بريسبح يضل لدوني يمحو هاي رنتي إن لقبته أيها وحوي وح إلى سو حليلي رنتي rag aan arkayay in la soo diray oo ahaa niman muxuu ahaayay igu ogaa Cabdiraxmaan meherada haysta qaar hoteelo hurda haysta oo muxuu ahaayay midha iyagana loo yimi runtii waxa ay weydiinayeen Cabdiraxmaan ayay muxuu ahaayay runtii weydiinayeen iyo Cabdiraxmaan sidii uu muxuu ahaayay hawshiisa loo maareyn lahaa iyo sidii arrinkan muxuu ahaayay يعني نوع مقعن قليلو كلا أيها ليلة سحري سكوسا وضوبه وحن أركي ركّل الدوام من أركي نمن وريال بن أركي ليلة سهلي ودوني يعني قابته وقادن نمن كلا كان عسته بن أركي نمن بوليسان أركي ودوني إني أنا جو أن أشجعه قابته وعبد الرحمن شوقه وأنا عبد الرحمن ما هي صوت المامو سيلا صوت حقيقة وحنقول رم بندي شيء هذا العد بندي شيء وحويه ما ضمانت قاضيسان عبد الرحمن إنه بدبادو ما ضمانت قاضيسان يقولي حقيقة وحوي سعد بانو ديدي إن هاي عبد الرحمن الواحد قدبه وأنا دريمي عبد الرحمن إن قاب كانوا كلا لولا معامليه وأنا دريمي سنتي أنا ستوصل إلى مسوح حريرين لكن سي لدوني حق ليجوا هذا قابته شوقي أيوم بلا يرسو حريرين لكن بوليس انتو يلا صحيح وندوننا ننكا وعسن وديننا متشر نين بوليس كشجع تلفوني يلا صو هذا ويقول خلي هبل بان هاي أي يلا صو حريري ودوني نيو نكى ما ندونينا بيقول نكى ما ندونينا أو وحن ندونينا مو هاي محد كدونيسان عبد الرحمن دبعسر بندوننا محد كدونيسان نيو كلام ما هاي ون إيه نيو مو هاي نيو بالك مو هاي وكان سيدنا وكان داوع شيء أو marka waan dareemay inay doonayaan inay qabtaan waan dareemay inay doonayaan inay muxuu ahaay qabtaan oo ay muxuu ahaay sida ay caadada ahayd ay sameeyaan xaqiiqatan wax toosan ay mu sheegin laakiin wuxuu doonayay wax xog inuu helo niman wariyaal oo wariyaal matalay oo Cabdilcasar baan wareysanaynaa aniyo oo aan ka dareemayay meesha ay ka socdaan iyo cid ay taageersan yihiin iyo waxay doonayaan baan runtii ku bartay niman asxaaba ku bartay oo muxuu ahaay yani qaab basaasnimo u socday man bartay waxaan ku bartay inay dadka qaar jilcsan yihiin oo runtii yani iyagoo aan muxuu ahaay aan ka garnaqayn oo aan muxuu ahaay yani martida eegayn oo doonayay in muxuu ahaay waa kan inay muxuu ahaay yiraahdaan qaabkaas inay muxuu ahaay u basaasaan ayaan arkay xaqiiqatan dadka uma suura gelin ما قرنا يا عبد الرحمن سكست بها اللقب لكن ودالك ما قرنا يبنوا هاي واحد كوصوت المامي يو واحد كوسو هاجي قرن مايو ما قرنا يا إن إمام الكهوتيل كيهين ما قرنا يو ضد عبد الرحمن مو هاي سيم كارت كيسا أو يوجو بحيي سيم مو هاي الله لا قابت مع عبد الرحمن وتشوجو يعني رنتي محوها حوي وانا اسكسر ان شاء الله باذن الله الكريم dadka maxaa Cabdiraxmaan maxaa ay ku soo hagay oo yani maxaa iyaga oo og in xadgudubka noocan oo kala u dhacayo ku soo hagay way iska soo bixi doonaan Cabdiraxmaan maanta ayuu hadlay afhayeenka boolisku wuxuu sheegay إن عبد الرحمن أي قبتان وحوش جاي سيدو كلا إن عبد الرحمن الله هيستوفل كل ده أمني كل ده يعني حما تريتان كا قرن من السمالان يتريتان كذا فلل كل ده لقوا هيستا سيدو وشاجي أفهيان كاسي وحاو كلا وشاجي
afhayeenku eedihiisa wuxuu ku daray in markii la weydiiyey wariyuhu weydiinayey wariyihii ka socday harwanaag markuu weydiinayey cabdiraxmaan wuxuu sheegayaa ama la sheegayaa in jirdil loo geystay cabdiraxmaan wuxuu sheeganayaa in jirdil loo geystay maxaa ka jira taliyuhu sidii uu afhayeen u yahay cabdiraxmaan ayaa wuxuu leeyahay wax jirdiloo loo geystay ma jiro waa been buu leeyahy siduu u caddayn karaa ma doctor baa ma dhakhtar baa siduu u ogaaday jugta cabdiraxmaan loo geystay ee maraggii leh ee ku dhaaranaya ee ilaahay ka baqaya ayaa jooga markaa jugta loo geystay ee la arkaya ee marag ay dad maraga ay soo istaagayaan oo ay ku dhaaranayaan ayaa jooga hodheelkiina way joogeen laga cunteynayay hodheelkii laga qaaday saakana way joogeen ee hurdada markaa sidee buu ku ogaaday afhayeenka boolisku in aan cabdiraxmaan jug loo geysan cabdiraxmaan wuu xidhan yahay namuu tusin cabdiraxmaan inta la xidhay ee muxuu ahay qolka dambe lagu soo xidhay ayaa cabdiraxmaan afkiisa lagu hadlaya runtii ma qurux badna mana habboona in qofka lagu hadla afkiisa looma geysan keliya waxaa kaga filayd inuu yidhaahdo arrinkaas baadhitaan baanu ku haynaa xaqiiqadiisa mantiqa iyo macquulku waa kaas inuu yidhaahdo arrinkaasi hadduu jiro waxa weeye wuu soo bixi doonaa waa la caddayn doonaa isaguna waa caddaysan doonaa saas wey laakiin ma jiro inaad adigu noqotid ninkii soo qabtay garsoore noqotid oo looma geysan maxkamad ba la islama gaadhin maxaa maxkamada marka xukunku sidee buu noqonaya maxkamad ba la islama gaadhine xukunka hala sugo maxkamadda hala sugo baaritaanka hala sugo lisa waxa weeye wax yar baa ka soo wareegay goormaad la kulantay goormaad hubsatay ma dictoor baa tahay kulli haadaa way dhaceen maantay dhaceen inuu muxuu ahayey afhayeenku muxuu ahayey uu qaabka muxuu ahay u hadlo afhayeenka booliska cabdiraxmaan runtii ilaa iyo hadda inuu ciidamadu ay boolisku gacanta ku hayaan ayuun baanu ognahay laakiin saldhigga iyo goobta uu ku jiro nala kuma wargelin aad baan u doonayna inaanu ogaano sidaan uga warhayno daawooyinkiisa cuntadiisa caafimaadkiisa xidhiidhkiisa xaq buu leeyahay inay muxuu ahay ogaadaan dadkiisu booqdaan ku ogaadaan goob ku ogaadaan cayima yacni mar labaad iyo mar saddexaad waxaan mas-uuliyadda cabdiraxmaan wixii soo gaadhay iyo waxa soo gaadhaya iyo waxa uu sheegi doono hadduu soo baxo mas-uuliyadda waxaan saaraynaa yani muxuu ahay mas-uuliyiinta ciidanka booliska raggii amarka ku bixiyay ee booliska ayaanu mas-uuliyadda saaraynaa really waxa weeye ma aaminsani in arrinkan loo dhan yahay ay xukuumadda somalilan u dhan tahay in ninkaa martida ah ee muxuu ahay ubadkiisa ka maqnaa 17 sannadood ee martida ku ah muxuu ahay hargeysa ee soo booqday ehelkiisa bimacnaa inkastoo aanan odhan karin marti buu ku yahay ee laakiin muxuu ahay soo booqday dhulkiisii iyo dadkiisii ma aaminsani inay xukuumaddu muxuu ahayey ay isku raacsan tahay ma aaminsani in arrinkaa loo dhan yahay inuu yahay xadgudubka xitaa la garaacay inuu yahay ictidaa fardiya xadgudub keliya oo cid gaara ka dhacay oo cid gaar amarka bixisay xaqiiqatan waxaan weeye waxaa la bartay in dad badan sidaa lagu daayo dad masaakiina jira oo aan caan ahayn oo aanay cidi ogeyn dad masaakiina oo aan caan ahayn oo aan cidi ogeyn baa jira oo yani muxuu ahay dhibtaasoo kale ay ku dhacdo yani dad muwaadiniina oo la jugeeyo ayaa dhacda dad muwaadiniina oo la rasaaseeyo ayaa dhacda oo aan la laba cali isweydiin dad muwaadiniina oo la dhiibo ayaa jira waxaana ugu dambeeyey warbixintii aan ka diyaarnay muwaadin reer gabiley ah oo ay ciidanka boolisku soo qabteen siday ehelkoodu noo xaqiijinayaan oo ay ka soo qabteen hargeysa 10 maalmood wuxuu ku jiray CID-da qaybta baadhista dambiyada waa 2014 waa bishii 6 12 la soo qabtay waxaana loo dhiibay Djibouti baa loo dhiibay warbixin baanu ka diyaarnay cidna kama hadal waxa weeye xilligii wasiirkii waran cadde waa xilligii taliyaha booliska Cabdullaahi Fadal Imaan waa xilligii madaxweyne Axmed Silaani cidi kama hadal mas'uuliyaduna iyagay saaranta ragga aan xusay ayaa xumahay muwaadinka reer xumahay gabiley ay boolisku qabteen iyaga xumahay ka mas'uula muwaadinka magaciisa walaal Cabdullaahi Sheikh Cabdiraxmaan Ibrahim waa reer gabiley waa beesha madigaan
وحوي ومواطن معروفة أو كبر باري كنا دشي هرجيسة كبر باري كنا شيء قبلي كنا برباري وحبرشة دي شغلي هسي هرجيسة وقيب كم ده مواطنين تلديجو وحشرة مواطنين كلا أرنتي حد جذبية لو جيستو وحي نقطة ضدكي يعني أرجح باب مو هاي رنتي ضدكي ويبقيان ما هذي كريان ضد بقى تيسون وأن هذي كريم باكرة ضد مساكين وأن هذي كريم باكرة ضد حق ولا إني هذلان باكرة ضدكي محاوي يكون نولان منه رنتي قاب كن نولان منه أرجح كن نولان منه بقدين كن نولان منه حرية التعبير بان دوننا إنه هذلان دوننا عبرين ما دونينه حقيقة وحنا أمسنا هي مدحوينا موسى بيحي إنه قيب كاهين هنوع عدي إنه أرهن قيب كي هاي إنه قيب آنو كاهين أما مدحوينه هسي وضو لقن كي هراء بحوها يروتي عبرين تموادرين تا عبرين بدل ما ندري من هذان موادرين تناي وأنو شاغنا إن عباشة هذا موادرين تبامناي وأنو عبنا وحنا نكعبنا بوليسك وأنو كعبنا حد جد بيده وأنو كعبنا وأنا لكو حد جد با يعني عدالة درها نقول على الظلم ما نقول على الشعب كناي لما مظلومين تورا ما نقول سك سيابك لدوم بحد جد بكودع خوف بعدك كودع سومالي لأنه وحيكون سلايسان تاي أو أيكون تاجن تاي أيكون قاضي يبقى دول مديد بيكون قاضي دول مجي هدو صار نقضه محايس بدلي سومالي لأنه دن قوني ستاج جيدا إيه النظام كيد أردن إيه واحد ضدك محاها لجاي بنا يا شعبك لقو قنعية وحوي دول مبعد عاي سداسين كو قاني مركا وحي هدو صار نقضه كور هدي لله حلقي محمد سياد بريدتك كوح باللغة بني أفرت باللغة ليني إمك هدي مد محاها لو حدا لو دي بيو ومرنا لحدا يلا 20 سنة 8 سنة 6 سنة لو حكومية فرق جودة حيوان معي دول مدينيان صنقا محايكو كلا دويهين مرير نيمك كلا دويهين مسياد برير كلوها كسومالنا هيستنا مرير كلا مركا كلا ددن با كمحوها مثلا أنا عبد المالك أنا سكورير ناي مرددن محوها دول ميجيسو معان با كاكلا لما قرار با دول ميجوا ظلمي يعني رنتي وحنوبها هن حرية تعبير بنوبها هن حقيقة إنه نعبرنا فكر كيجا عبرنا بدحوينا العصوب وحنقول عصينا إنه أرن كانوا حاجة بدلوا وأنه عبرنا قفكي هذلا وحوي وحرك إما كمان تو قدام بيسان طب عسر كهذا وحوي وحليجوها هنسيب يحرك فريمها أتشباد أنت أصلا وين مشري وأنا مشري ما شيء يشري شلي حاله قدام بيسان طب عسر مركل الرادني أنا جنا ولا يرادني ساك أنا جنا ولا يرادني وحلا دوني اللي يحرو وحوا ما شيء بقولار شربان كبد باني قرشيال بدل بانو عرقني لسوم لقي إلهي بحماه نقبض بهذه رعب بيت ضدك يكونوا ليهين قار كونوا ليه خاصة ضدك أركتي له أرجع حبي يكونوا ليهين لما دونيو وحن دونينا إلهي بان نسيه حرية التعبير إنا نسيه حرة ونولانه فكر كيجا عبرناه كفاية يعني حويه ماها أدوه هباء دسيسي أما حل هاي أما هين أما مواد نقو أما هالنقن ماها يعني حويه ودن كوانو شيء أنا أقول غير برعانة هاي غير سومالي لان هاي سومالي بان هاي سومالي أردن من تعال هاي أركتي إذا نورن كرا وحويه يعني إن أنا أقول هاي غير برعو وأن كبر باري هالكا وأن بوه هذا كل شيء وأن ما برعو كوين هذه وأن يمن تجي وأن ما وحكا صبرتي وأن لبيه تمن صنّا كم مغنى وأن صون نقضي لبده كوني صدح دي وإلا يمك أن برعو أنا كم مغنى سنة قديها أنا كم مغنى لو بلود صدح بلودي 8 عشان كم مغنى برعو إلا لبده كوني صدح دي وأنت حنا أنتيلك كحنا يعني لا يجمع شيئا كرام ما نكست الأورام ولا ما أورام كرايو حوي قرني بتكسر جدا والقرني ما كسر ما سهر شيء وحنو إلى لنا ضل كانوا إلى لنا وحنو قبلوا نهالجن كإثيوبيا نديدناي ما هاينا نجا جويسان مع سوماليا أو دبت الناس عارتان إثيوبيا إن سوماليا نجا سو جويسان أو إثيوبيا دبت الناس عارتان عدالة ما أو تلاذان إثيوبيا بقول كيس قالت توما بقالسة ده عدالة ما يا أخي وحاسد كجدودين السنة محاسين كعدي ظلمي بي كعدي هنقصوا علينا ظلمي وانو ديدني وحاول كعطينا مدحوينان عصب إلا دورتي مدحوينا مسبح أما دقن كي هورا كسعو أرجع حانو كنولين دتك محاي لو سو دعي دتك لقب قبني عدالة درهدي دعسي دتك لودي بإثيوبيا تبوتي سيدي كوسي ود أما وح كبد يا أخي كفاية حرية تعبير مشلو دتك واحد نقدن عبيد مركز أري كهذا شيء دتكي وحويه وحين قنيان عبيد بين قنيان وحيكون أول وحرية بكورنيا مركز هذا شيء حرية التعبير هذا شيء الدولة ده وحكي شيء والوحرية دتكي هير كاسي مريان
لا وحوي ما دونينا إنه نسان نقولنا وحن دونينا إنه أركتي إذا كهذا الله إنه نصيح ولا وهذا الله وما سنتين وحيداونا سجال كوني الله بقول قفة يداونا يا وحوي يعني وحوي سكور كيوبوينا رقم قياسي كيوبوينا ضد يداونا رتي هذه هذا ما سنتين ضد كيداونا يا جزاكم الله خير وحنوش هذا سجال كوني الله بقول وين سيب بدن كرتا وحوي ما هي سنة رتي يعني بين يعني لسه شيء والله ما هي سنة حرية التعبير يا أخي وحوي إلا ما نتي ليسود أي حركة إلا إمك وحوي حرك بانك بقية يعني وحوي ضد بات شرك يلتشوا قدلك ديجي أو اللاعية ساسية جنيا خلط بيدونيا يوقفتان ضد باوشقية دلال كله ضد باوشقية مجا سومالنا شجنية أو إثيوبيا وشقية أو إلى الدنيا حرك أو إلى الدنيا نكيس يوقفتان أو وعيان أركتي ده أنا سومالنا كم سور تيدو وحي وعينيان أركتي ده أنا جاي صاحب بدي وحي وعينيان حرنا قرن مدو كسور تيدا كم سور تيدو أنت هسه نكو جبنا يا آدي آد بعد ما هسنتين بقولالك يكون منانك ضد إداونية آدي آد بعد ما هسنتين عبد الرحمن دب عسر بنغنية عبد الرحمن دب عسر وحويه وحنو ضلبنينا سألكم اللي بقول بمريا وحنو ضلبنينا وأنت داونيسا وحنو ضلبنينا عبد الرحمن دب عسر حكومة وحنو كعد سنينا كضلبنينا مدحوينا سيبا إنه سي شرف لأسود يا عبد الرحمن وينو سودايا وحويه وانين داعاد او قلبي وناغسن او بيرا سوماليات دمان بيرا ودن بدليلا ولا اساق بسيغار ودليلا ولا سومالان بسيغار ودليلا يا اخي غوبنيمدا ها laga raaco ninkaas waxa weeye nin ilaahay yaqaan wallahi kalinimada markuu joogo aan live ka ku jirin toos ku jirin nin ka cibaado badan ka akhris badan quraan badan ka degan ma arag anigu ka aqli badan toban ku may marayaan dadkii maxay daawanay scoorkii ugu weynaa ma sha Allah waxa weeye waa ilaahay mahdi وحوي عبد الرحمن وحن كعد سنة يا مدحوينه موسى بيحي runtii waxa weeye nin aan anigu ka dareemay in badan oo wanaag oo gudihiisa ku jira waxaan ku tuunsanay runtii wanaag baan ku tuunsanay xaqiiqatan waan kala saaraya maxay dadka xad gudbaya iyo madaxweynaha waan kala saaraya waxa weeye ilaa iyo madaxweynuhu uu raaco markuu raacana aragti kale ka yeelanaya waxa weeye waxaan ka codsanaya inuu isla bariba ninka la soo daayo sharaf loo soo daayo xasaasiyad bay leedahay arrinkana waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa reer Soomaaliland oo dhan isku ma raacsana xariga dabcasar madaxduna isku ma raacsana dadku isku ma raacsana dhamaan waa laga soo horjeedaa ninka sabab leeyahay waa ninka la daayo qaar waxa leeyahay ninkaas meel lagu celiyo meeshiisii hadii wax yaan wax loo geysanay ma Mareykanka lagu celiyo oo loo tarxiilo aragtiyo kala duwan bay qabaan macni way ka xun yihiin xarigiis way ka xun yihiin xad muxuu haye in lagu xad gudbo shirkiisa lagu xad gudbo intaas oo dadku way ka xun yihiin يا أخي وحوي دلكن وين وضلناي دلكن وين وضلناي وحوي أين وضع إلى شنو كفاية دتكي يان لدوين وانا لدوين كسر قنايا وانا لدوي والله وانا لدوي إن أنا كسر هرتيدين إن أنا نرب ولا ربين دلكن وحن دون إن جميس الديد بانونا يا أخي وحن نقول شر ديك جميس الديدة وحوي إثيوبيان قبلونا داوضة في المانتي لبعض كوني شنتي تمام كانوا صابلونا بيش سجارات markii gudoomiyaasha gobolada xuduudda dhulka la haysto ee Itoobiya dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya haysto gobolada Soomaaliyeed xuduudda la leh markii diri dhabayo deegaamada looga yeedhay gudoomiyaal oo la socday ninkii wasiirkii arrimaha gudaha xilligaas cali warcade halkaasaanu ka xumaanay halkaasaanu wacyigelinta ka bilownay gumaysigaasaanu diidanaa sida indirect la doonayay maxaan loo gumaysto dadkayga taasaanu diidanaa yaa akhi waa جريمة بهد بقول كيبا سجالي وتمن إن إثيوبيا دكتة ده كوي على طول يا أخي إثيوبيا مير لا دكتة سيد بقول كيبا سجالي وتمن سيقوي على تا سيد بقول كيبا سجالي وتمن قوي على تا سيد بعد أدوك قرني بعد إلى اللسان طبعا عصر بعد قرني ما كي إلى اللسان ورقرني ما ذو واحد هاي بقول كيبا سجالي وتمن كا إثيوبيا ندو ديدان به ما هذا عصر اللي حرات أتكفر عدان ذات قار أركتي جابني دينا وروحك ورعد عصر بيكوت ماما يعني ودق الحوية وروحي يمي سومالان وحي يمي أندرسون كوبر ونين وريا أو CNN كشقية أو ضدك لقن كحن يعني آمسن إن رجع يسكوسان دمر يسكوسان وين أركن مدحنا لكل مي وأرك حسد كهذا لايدن وأركوايا كوا كذا ربط كهذا لايدن وأروح حسد كهذا لايدن مسكين كان الذين وحوي يعب وحوضا وحكى القاربة كله وحوضا استلح قلب الشيء في عيس والله يبان حبوه ذين هو مسكين إلهي يا عمي وحوي حمر بكلين ضد بيصدران
والحمر تيدي والله كم مشغول سنتها وروح وردتكيبا ورعد دتك هالكن شوجا حمر شوجا يوم مالك لا شوجا وطنية دي وكذا مات دت كل فكر ما إني ميدودو الصومال لأن الصومال ما بتشوجان بقى وربطت كاس ما تشوجاني مكارلجا يدو كنا واحد كده على عشان دتك قار وحوي دت بحمر لقى صوت ريايو يعني إصلح قلب شو والله بيكتها والله إلهي بان كدارته إن الله يصدرين والله إلهي بان كدارته إن الله يصدرين ولي اللي يصدرين ضمير بايقوشره ضمير نول بايقوشره انت اسانو شيغيا شعبكيga meel kasto ay joogan shacabka Soomaaliyeed oo baa u sheegaya reer Soomaali ba si gaar ah u sheegaya waar si cad aynu ismuhay ay wada muhay cad marno adalka hal badbaadiyo gumeys baa inagu soo socda hayayna ku farxin wariya colaadan leela gaarsiiyay heerkan muxuu xuni heer xun baynu gaarsiiyeen dabada waxaynu ka nahay Soomaali 11200 dadkii marayaan 11200 ay marayaan ilaahay khayraadiisiyo ورد عالم كالصومالي بأن الله يقانا صومالي بينو كناهي والله صومالي بينو كناهي أما وين كرامتنا ويراتي صومالي هل كان يكتغان هرقيس يكتغيان برعا يكتغيان وحوي وحسكو ليبيا شرعي مركو كو قادانا يوروب يا مريكان وحشاغان ينو كونفر كيمي او آني نبدي كتشرين أما قبويو شاغان يا لبدانا وظلميا ومع دالت با باسابوركي صومالي قالوا سفرية حاج قالوا تغيا هرجيسان بما لقى دولة أنت صوت ديارض أنت صوب باسبور الصومالية وأراد لو حويه دنا بدن بين جحرن دنا بدن بين يسكو حرن هاي ضد ولا لا بين علاده يسكدينه العلاده يسكدينه يينا بيت يسوشيجن وأراد القولك استابوه هذا النداب كذا هو مديدينه يا مامل يسين سوى ناقص الله مامله لكن أمد علاده اللي نحدق أيوه هلا تشوتيو صومالي واو ولا له ضد كشعب كأنا وأراد دول مجديدة waxyaabaha aan arkay waxa kamid ah runtii aan doonay markasta inaan idin la wadaago waxa kamid ah qof baa la dilaya oo boolis dilaya wax oo mudaharaad saalahan markaas waxa oranaya qof baa oranaya waxa uu sheegay qof baa la dilay waxa oranaya hada askarigu de waa la xanuujiyo askarigu jawaab inuu muxuu sameyn la askarigu hada way shiidayaan askariga waa hadu wallahi ahaan laha ka dhintay qofka hadlayo walaalki ama walaashi sida miyuu hadli lahaa مو هذلين قبل الظلمية الحرية وقلنا شرعي ميو كسر ورشة شرعي قال وافقني دولة ويسحسن تهاي دولة وسدن ظلم من نوع عساكر قفك إلا أي كود عضو إلا أي كود عضو مركز صورنا يا حوي إلا أي سجى تابته ولا الكتابته غير كتابته لكن وريان ظلمية لسورعين ظلمية هلا ديدو بين تيجينا نسوشيجن سعد بين نسوشيجن سكاليرا أي نسوشيجن رونتا نسوشيجن يينا بين تسوشيجن يينا بين تسوشيجن وناق بان وضع صومالي ودن بان وناق وضعنو وناق بان وضع إلهي با يقول بهاري برعو او آنان كبحين او آن كون نقاني او رير كيجو تشوغان او داد كيجيبا تشوغان او آباهي كو آسين يهي حبالها الله سعوده هودالك سيتي بلازي مركا لتاقا يميدي تكاقبانيا ايه ديرك الله سمي ايه هودالك نستيحو كسوكيا آباهي شيخ مساعد دنبا كو آسان مركا استادي ورانيسا مالك استيقوها انتي بس حريك او مركا الله لي مركا حاجة نصاب علينا اول محرية قرني كسور كذا يا عمي ومقالديدي يعني ما فوقين كرتي ودان كيغا خوق بان حيل هذا جعلاي لا ما حكسنيه حنشر بان قبيا كفايه كلا شيغشدا كفايه انو فلان كلا شيغشو انو فلان كلا شيغشو انو فلان كلا شيغشو ولا لا مeel kasto aad joogtaan waxaan sheegaya waxa igu jira damiir dhiig Soomaali baa igu jira oo muxuu ahay nool oo dhaqaaqaya wallahi alazim waxa weeye waan awoodi kar waa inaan dantayda kaliya raaco cid dabada iga wada ma jirto dantayda kaliya waan awoodi karaya inaan isna saqo qaar badan oo mansuuqiin oo nasaqan oo iska nool inay oo cunaan cuntada u cabaan inay noolaadaan iska shaqaysta si ay u noolaadaan waxa weeye ereyba ra'yi ba aan oran karin inay noolaadaan 12 ku meemaraya daawashadu marka waan awoodi kar waa inaan sameeyo sida waan awoodi kar waa inaan sameeyo waxaan go'aansaday wixii ummadda dhibaya inaan ka hadlo wixii wanaaga ka sheekeynaya inaan ma taageero dabcasar maxaan ku taageeray dabcasar waxaan ku taageeray waxaan arkay damiir naf wallahi kumanaan Soomaaliya ayuu ka qalbi wanaagsan yahay wallahi ninka aad u aragtaan inuu si yahay iyo khaldan yahay iyo dhaqan xun yahay aad xitaa wax kale ku sheegaysaan wallahi in badan malaayiin Soomaaliya ka qalbi wanaagsan yahay ka aragti fiican yahay war waxaan uu ka hadlayo uu ka sheekeynayo aan qurux badnayn afka laga sheego iyo beelaan weeray war laga saari karaa dhinacan iska dhig baa la oran karaa
wanaag baa loo hagi karaa damiir baa jira damiir nool baa jira damiir nool baa jira waxaan idin sheegayaa dowlad deegaanka dhulka la haysto oo cabdi ilay hogaaminayo dhib buu ku hayaa Soomaalida xuduudda dhulka la haysto oo dhan dhib buu ku hayaa waxa la soo sheegay intaanan ka soo bixin Hargeysa labadii cisho ugu dambeeyay wafdigii ka soo qayb galay caleemasaarka Muuse Biixi Cabdi wafdigii ka soo qayb galay ee hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka magaciisa garan maaye iyo kii dheeray ninka dheeray Khadar Cabdi ee gaadiidka iyo muujiga ganacsiga wuxuu yahay wasiirka ganacsiga lagu sheego ee mujrimkaas waxa weeye dad badan baa ku maqanay horena mujrimkaasi waxa yani 2 sano ka hor Facebook-ga dib u xasuusiyay waan ka hadlay waxa loo dhiibay 4 dhalinyaro ayuu ka qaatay intuu ka soo qayb galay Hargeysa munaasabad muujigiibood iyo waxa la yiraahdo ay isugu sheegaan khiyaaliga intuu noogu yimi Hargeysa munaasabad ay Etoobiyaanku leeyihiin ayuu ka soo qayb galay waa 2 sano ka hor hadiyad ahaan waxa loo soo siiyay ay xukuumadda Soomaaliland si 4 dhalinyaro oo beesha ogaadeena ayuu sii qaatay Allahu a'lam jeel ogaadeen iyo dhalinyaradaas waxay ku dambeeyeen garan mayno Facebook-ga ay xasuusiyay maalin la weyto bisheedii bay ahayd waa 2 sano ka hor dulmigaas jiray maalin la weytana maxaa dhacay maalin la weytana waxay isku dayeen dad nin ehelkiisi bay la soo xidhay xoogaal bay la soo xidhay waxay isku dayeen wiil dhalinyaro oo muwaadiniinta dega xaafadda calaamadaha ee magaalada Hargeysa oo kamid ahaa baan u malanayaa shaqaalaha xagga dowlad deegaanka marka soo shaqeeyay ayay isku dayeen inay qabsadaan ninkii adigu sidoo ka fakaday waa nimankii ka soo qayb galay caleemasaarka waxa la sheegay xataa inay la tageen hodheelay ka degeen magaalada meel bay adigu ninkii waa ka soo fakaday ilaahay baa badbaadiyay ninkii iyo ehelkii waxaanu qorshaynay in barnaamij waraysi ay bixiyaan ayay taladu ahayd marka ilaa iyo imika maanu dhamayn dadkaas way hadli doonaan inankoodu sidoo badbaaday hadli doonaan waxa jira falan noocaas oo kala waar naga qabta nimanka mujrimiinta naga qabta ee muwaadiniinteeda ugaarsanaya cabdi ilay iyo uskaga u shaqeeya naga qabta khatar bay ku hayaan falal bay ku hayaan dad bay ku laayeen Hargeysa gudahooda waa tiim maxay wasiirkii hore ee amniga ku-xigeenka Maxamed Muuse waa kii ka hadlay nimankii lagu laayay Hargeysa 2 nin iyo mushinin wuxuu ahaa nin baan filaya cabdi ilayna waa kii ku faanay inay dileen yani mid kamid ah maxay dadkii ka soo horjeeday ayuu sheegay laakiin xagga lagu dilay Hargeysa lagu dilay marka sideen amni ugu noolaan karaya inuu cabdi ilay aduu Hargeysa igu soo weerari karayo dadka ka soo horjeeda yani waan la iga qabtaa dadka waan la iga qabtaa wax weeye wada shaqayntu saas maaha wada shaqayntu sida maaha halis bay nagu hayaan muwaadinkii xorriyad amni kuma haysto buuxda muwaadinka laga dhiibi karayo la ugaarsan karayo waxa weeye xisaabtan baa isu weeye mar labaad waxaan idinku celinayaan muwaadinka reer gabiley waxay ka xigtaa 550 kilomitir ayay xagga galbeed magaalada Hargeysa u xigtaa muwaadinkaas waa in la soo celiyaa Djibouti ayaa 2014 loo dhiibay maxkamad lama keenin waxana lagu ma soo oogin hal la soo celiyo يا أخي وحويه كاسال قضانية أو كنال قاضنية أو كنال لجو حسينية هذا يساكو سي سعوتو وحويه ضد بدن باتجي ضد كيسيانة ودريمين مر قفلة صحرية عرفتي لك صحرية تهذا اللي بعدي ما كان واحد صباحي أو المدحوينها كوعد صنية إنه ينقل توتيو لكن كان أنا وناكسني قفك فيسبوك يسوي عرفتي يسوي عرية ولا حرية ما نلويتو وحلا حري إن الله يراهدو مصطفى بارود أو كم إذا توابرياشة حزبك وطني وحو بينكاس أفريقيا سوكيمي وين نقويها هنا كل يوم حال وحري أركتي دي سو شاقي وكعريي وكهالي أنا جوا يقول صوم مقنعيان ربي بقى قبل بعد سيبان قبل بعد أنا دوني لو ده قال كان حرق بان وهين أنا جاي يسوي نكلة هذا يقول يسوون بالحرق هنا كاس ليه شو كشري وصباح ولا سوداي مجرد فيسبوك يبقى الأورانية ما هذي كرسي يا أخي 10 قفك مركل الحريو إما كان مركل الحريو أما أنا كان الحريو وحيوتها السجا يضد بدون لدونه يا إناني هذين إناني حرية ديالن واردتك هلا سي حرية تعبير وارجع دستور كقرن وارجع معها شرائع سماوية كله وحويه وحي إلى لنا حرية التعبير قفك حرية دي سي إلى لنا إنه هذكر وارقفك هدانو دجالمي وأنا وحدي لي سيدا طبعا وأنا هو بهيسن إلى أبان كلها شيء ميو يستاهل جراعة يتشبكة
iyo albaabka la soo jibinayo dabcasar واريا صلوا عليه صلوا على النبي يا أخي صلوا على النبي صلوا على النبي سيدنا نسمها صلى عليه سيدنا نسمها وحن دونينا إن كرامة كنا ورانو إن نكور ورماها بعمر كان دحمر أيو إن هرجيسم ما يكور ورماها وإن ما حرية كنا ورادا ولا لا يا هذه يا بعد ما سنتين هذا بني كم هالعلنا يا رنتي ضدك ما هي تاجرة ما أنت أنا تاجرة يجسور تيسته يجسور تيسته أركتين هذنا دقيقتين كل شيء برنامج كلام كتوسكا wax kasto aan soo qoro yani ay dhaliila waan u mahadcelinay sababtoo way la socdaan de aragtideedii bay qaadanayaanba oo micni waxa weey waaban doonayba igaba soo horjeedo laakiin ma ku soo gaadhay anu intaan doonayay ma ku soo gaadhayba taasaa bay guulay intiinuba dhammaantiin waan idinka mahadcelinaya bismillah aad baad u mahadsantihiin intaasan runtii doonaya inaan ku gabagabeeyo والله بكون يو حمر إذا داوشته الله بكون يو معاي تضرب بقول إن واد ما سنتي ملك استوى جوكتان وأنو مهد علنا يا معاي قف كستو كهالي مع دب عصر وحن أرن كدواني يا ضد كدب عصر كهالي إن الله بيلين وارماها شيكو إساق يدارود ماها ورشيك الصومال لان يا صوماليا ماها وارن كيان الحير كجارسين واروا اعتداء فردي وحد قدب قار أو أوامر قار يسيون دعي arrinkana waa la xallin doonaa insha Allah saasan rajeynayna laakiin qabiil yaan laga dhigin reer ba reer weerarayo reer ba guna iyo reer ba goba abadan arrinka saan yaan laga dhigin arrinka yaan la fogeyn dadka khaasatan waxaan la hadlayaa dadka haysta dadka badan ee Facebook ku xiran arrinka dabcasar yaan heer beelo laga dhigin arrinka insha Allah inuu doodno xaq buu leeyahay dabcasar waana sheegaya anigoo يعني هالسا بدن يقول هريرسيين أو كهذا يقول هريرسيين وان كهذا واد ما سنتين ولا يلود ما سنتين وحوي إن شاء الله مرة وحن صور جاي هالكوديك معي هاشتاج أو الصمدة أو إنه معي دبعسر معي إنه كهذا إنه أو فيديو كستي مقال كستي دبعسر كسابسن إياه كهذا كستي دبعسر كسابسن هذا هو استي هاشتاج أكو غري دونتان سي وقف كستي أمر كهال كهجلو وارك واحد دبعسر كسابسن أو كوبن واد ما سنتين مرة بعدين مرة سدحات واحد لا عبد الملك الشيخ مسعود دون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.